waxaan jecelahay inaan halkan marka ugu horeysa tacsi uga jeediyo qoyskii iyo qaraabadii ka geeriyoodeen labadii sarkaal ee ciidamada qaranka Soomaaliland abaandulihii guutada 17aad iyo madaxii howlgelinta ee guutada 17aad operations officer-ka ninkii ka ahaa guutadaasi oo labadooduba maanta dilkooda uu keenay in mudaharaad weyn oo gilgilay magaalada Gabiley oo ka dhacay dadka reer Soomaaliland marka hore waxaan jecelahay la qaybsado tacsida iyo geerida naxdinta lahayd ee ku dhacday labada sarkaal oo ah xaaji uub ku ah Soomaaliland si ay dadku u fahmaan marka horeeto nin kamid ah askarta oo discipline ama anshaxumo loo xiray oo iyagu u xireen ayaa waxa dhacday in la soo daayay ninkaasi cid soo daysana aan la garanayn qorina la siiyay cid qoriga siisana aan la garanayn ninkaasina uu si xaq daraa oo labadaasi sarkaal oo u dilay dadkii sida aan wararka ku hayo dadkii operationska kala qayb qaatay iyo ninkiiba lama hayo ilaa hadda saacada dadka reer Gabiley iyo Soomaaliland oo dhan arrinkaasi uu gilgilay geeri naxdin la ahayd geeri ugu ku ah Soomaaliland ayay ahayd waxaan soo aragnay ma ahayn anigu mid baan leeyahay shacabka reer Gabiley oo ah nabadda haleynoo ilaaliyo mudaharaad salmiyana xaq baa u leeyahay dareenkiina ku muujisan midna waxaan leeyahay dawladda Soomaaliland arrinkaasi sida ay u maamushay arrin wanaagsan mu ahayn labadaasi sarkaal maamuuskii iyo qadarintii ay ku lahaayeen iyo ciidamada halka ay naga taagnaayeen may siinin wadogtiin caalamka dagaal ayaa ka dhaca hal askari oo laga xiro Israa'iil waa ogeedeen waxay sameeyso marka hal askar laga dilo maantana raggii naga argafkaasi geystay iyo ninkii geystayba dawladda Soomaaliland meel kuma sheegin aaskii labadaasi sarkaal lama weyneen lama qadarin hatta TV-gii qaranka iyo idaacadaha aan kama maqal hadaa dadku ay ka maqleen waxa weeyaan waxa ku wanaagsanayd in dawladdu ay weynayso arrinkan weyn ognahayo maxay ahayd iyadoo la siiyay ambulance berbera airport-ka ay shan wasiir halkan ka baxaan oo ay tagaan oo ka qayb galaan xafladaha war aaskaasi labadaasi sarkaal ciidamada qaranka Soomaaliland maxay ku dhacday in og aayarun lagu aaso oo aan la weyneynin oo aan qarannimada iyo dadka loo muujin maxay ku dhacday arrinkaas waa arrin seegay baan leeyahay xukuumadda iyo madaxweynaha oo galmudug ka ahba labadaba waxaan leeyahay waa in la weyneeyaa marka saraakiisheena militariga ciidanka qaranka Soomaaliland haday police tahay iyo haday militariga tahayba marka gaf xaq darre uu ku dhaco waa in la qariyo maaha laakiin waxa leeyahay shacabka reer Gabiley samra walaalayaal waan ogahay inaad damqanaysaan inaad codkiini ugu badnaa siiseen dawladda kulmiye maantana iyadu aanay sidii maamuuska lahayn inkastoo ay qadar Allah ay tahay waxan oo aanay dawladdu keenin laakiin haddana dawladdu tallaabadii ay ka qaadaysay inay tallaabo ka duwan tan imika ay sameysay inay sameeysaa baahay tallaabooyinkii ugu horeeyay ee ay qaadi lahayd halkay Gabiley RRU-da uga dirayaan gurmadka halka looga baahnaa qorolugud ayay ahayd waxa nasiib darro ah in marar badan oo hore shirqoollo la maleegay aan la baadhin oo la damamisay oo aan laba cali mar dambe isweydiin waxaan uga digayaa madaxweynaha maanta kani kiima noqonayo maanta waa maalintii adigu aad hadli lahayd waxaanu dooraynaa in dhacdadii ka dhacday qorolugud xaqiiqadeeda runta ah ee la baadho oo xaqiiqada dadka iyo dadkii ay ka dhinteen qoysaskiiba ay helaan ogaadaan runta wixii dhacay labada nin ee la bartilmaameedsaday waxa loo bartilmaameedsaday sidaan u arkayaana waxa weeye ciidamada ku dayran Soomaaliland frontka bariga ayaa ah ciidanka ka soo jeeda badankoodu ee gobolada Garoodijeex iyo qorlugud fantaasideena waxay ogaaneen horta qaran ma ogaan qabaa'il mani hadduu nin booliis oo shaqo ku jira oo ku dhinto actionka
بوليس كي قرب قلت هدو فرد ككتيرو أن بهدلو حبت صاحبه كل عضو فرند ضاير ضايرها وقف إهلي أم بش هكون رفت عدوي وحقول تجي وقات دريس لو الدفاع غرك إلا قبيلة ديو إلا السياسة ديو وتتعطوا فوحمو قام كنا قول من عينك هل كانت شوكتا waxa lagu dilay ninkii taliye ahaan jiray ciidanka madaxtooyada oo reer buuqood lagu dilay bariga الله صعوبة إلا ما قبل هذا من قرن نقدر نتبوه تولده وحويه ممكن في الدبية العاب إن أمة أشر تصور عين تزود تكتشها فالكاس هذا عين فوشهم ساسو كل عين تحزن وان بحيننا وأنا كنت عن كل يجلين السوق هذا ينتاج الدولة كبتو ما خلاها بدنيا تبقى الشيء لكن وين الدولة الخيارة توحي الدعاية ولو تشمك عيدك وخلا السوق كبح السركال بقى يجي انتهي يعني وحول تصاحي إنين الدنبيلة مركز أمضي وجانسة هذا أمضي الحلوش يجي كيف حلوش يجي مركز وحلينا هاي تاسنا أينو إسكو قبيل كيس كسهار institutions بنا هاي قانون بنا قفكش دولة والشقية وحكي سوق سهرية كان الدولة هي نكوا عين كاسو كله مركز تاسنا وحلينا وقت عسلين الدولة حكي ذا كسر بحضر dadka muujideen ka soo jeedina waynaga wada dhintay labaduba doorama waxba ka meeleen gabiilna waxaan leenahay waan kuwiisa ku dhaawacnay waxna ilaahay daweeyeen dawladda waxaan leenahay ciidanka mudaharaadka qabta samaysta aaraaridu wax loo sameeyay terroriska ayaa loo sameeyay qabta baan insha Allah ta'ala way yeelan doona qalkaasna haddana arrintu way dhamaatay dadku waxaan leenahay qaati kaarka alxamdulillah rabbil alamin وافق في قالوا وين وافق والله أنا مرة من الجدينه وضح يا مخسر نتوى ولا قصاري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته